tartankii ka dhacay dalka Ghana ee ciyaaraha Afrika ee orodada sanadkan Soomaaliya sida muuqata waxay ka gashay kaalinta labaad waxaana ciyaartooyga lagu magacaabo Cabdullaahi Jaamac uu keenay bilada silverka. Haddaba Soomaaliya waxaa muuqata inaysan weli u diyaarsanayn inay tartamada caalamiga ka qayb gasho. Waxaa la yaab leh in ciyaartooygan uusan ka qayb galin tartankii Olombikada ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka France sanadkan isagoo weliba keenay guushaas aad arki kartaan. Ciyaaraha fudud ama athletics-ka waa Soomaaliya halkii awood ku leedahay. maantana waxaan rabnaa inaan dhiirigelino oo boorino ciyaartooygeena. sidoo kale waxaa jira ciyaaryahankan Ethiopia won, Somalia 2 and Kenya wins the bronze medal. Ethiopia iyo meelo kale oo kala duwan. Marka ciyaartooyda Soomaalida ee tartamada orodada ka qayb gasha waxay u baahan yihiin daryeel dhab ah iyo in xiriirka ciyaaraha fudud uu ka warhayo. Soomaaliyana waxay khasaarisay fursad weyn oo ay ku qaadi kartay ama uga qayb gali kartay ugu tartami kartay biladaha tartamada orodka 10,000 mitir 5,000 mitir. sidoo kale 5,000 mitir waxaa lagu ordaa daqiiqada dhan ilaa iyo 12 daqiiqo 13 daqiiqo ciyaartooyda professionalka ah, halka 10,000 mitir lagu ordo 30 daqiiqo iyo inta u dhaxaysa 6 iyo 20 daqiiqo. oo hadda waxaa haysta orodkaas championka 10,000 mitir ciyaartooyda reer Uganda Joshua Cheptegei. marka waxaa loo baahan yahay in ciyaartooyda Soomaaliyeed diiradda la saaro, xaqooda ay helaan, la daryeelo, xiriirka ciyaaraha fududna ay ka helaan daryeelkii ay uga baahnaayeen iyo dhaqaalihii. waxaana sidoo kale jiro ciyaaryahan kale oo lagu magacaabo Cabdisalaan oo isagana ku tartamay magaca Soomaaliya isagoo u ordaya dalka Switzerland ayuu ciyaaryahankan ku nool yahay. wuxuuna ka qayb galay tartamo fara badan sida aad arki kartaan. wuxuu ku guuleystay Geneva Marathon ayuu ka galay kaalinta labaad, sidoo kale Zurich Marathon ayuu sidoo kale wuxuu ka galay kaalinta koowaad. ciyaartooygan waa ciyaaryahan aad u wanaagsan. haddii xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud aynan daryeelin ciyaartooyda, ka fakirin, fangareynin, aan laga warhaynin, waxaa dhici karta in ciyaartooydan sidan u dadaalaya, juhdigan bixinaya, dadaalkan haya oo xitaa dalal kale oo qaaradda Afrika iyo caalamkaba aynan heli karin maanta ciyaartooyda tayadan leh, in aan khasaarino oo aan lumino fursado waaweyn oo aan caalamka uga guuleysan karnay bilada dahabka ah iyo qalinka iyo maarta si lamid ah. haddaba Soomaaliya waxay u baahan tahay kacdoon dhab ah inay dhalinyaradu kaliya ay xoogga saaraan sidii ay dalkooda u horumarin lahaayeen, ugu hadli lahaayeen ciyaartooyda Soomaaliyeed, garabkooda loo istaagi lahaa. waxayna matalaan dhammaan qaranka. fursadahan dahabiga inaan lumino oo ciyaartooydan tayada leh oo ay adag tahay in la helo, in la lumiyo oo laga faa'iideysan waayana waxaa eedeeda iyo qaladkeeda iskale xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud iyo guud ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. waxaan rajeynayaa in muuqaalkan uu gaari doono meel dheer, ciyaartooydanna tayadooda laga faa'iideysto loona kaco.